magaalo joognimo xumada hadda ka hor waxaan joognay sacuudi arabiya xoolaha ugu qaalisan oo loogu jecel yahay oo waagaas joogay 80 riyaal waxay ahaayeen xoolaha Soomaaliya ariga oo ay carabta u yaqaanaan berberi arigaas wuxuu ka bixi jiray berbera marka la waxaa jiray ari kale oo Suudaan ka yimaado mid Australia ka yimaado oo daba dheer sender kuwa waxay joogeen 35 riyaal laba jibaar ayuu ka badan yahay sababtoo waxa weeyaan ariga Soomaalida waxa uu macaan yahay waxa waaye waxa uu cuno waa dhulkaas aragtay oo macdanta leh waxa soo cunaa mooska Soomaaliya mooska Latin America ama Asia laga keeno waxay ahaayeen $2 keena Soomaaliyana wuxuu ahaa 2 riyaal keena Soomaaliyana wuxuu ahaa 5 riyaal qudaarteen xoolaheen wax kasta ka macaan ka yimaada Suudaan markay ka soo degaan aadaab leeyihiin hal nin awad wuxuu leeyahay ila al-yamiin midiga u laaxanayo ila al-yasaar bidaxa u laaxanayo aadaabta ay qabaan ariga waxa ku soo haray Australia hal nin oo waxa wada cadaanay markaas wuxuu leeyahay take to the left laaxanayo take to the right arigeena soo degay koogu ugu horeeyo markabkaba inta ay ka soo degin waxa arkaysaa intii orgi oo dhan oo isgaraacayaan kan ka faniinaya badda kan wiil maalinkaasna booliska jiddo dhan waxaa lagu safaa furdada ilaa xeradooda haddii kala xafiisyada iyo magaalada galayaan bawaaba marka ujeedada waxay tahay dadkeena oo arigaas iyo xoolahaas cuna waa ujeedaa inay orgidaas kale yihiin wada buuq dagaal heshiis la'aan marka aniga waxaan ku talaa maartay in arigan iyo waxa la isku joojiyo la cunaayo oo malaayga badda la isku waxaa jirtay anagoo Nairobi joogno waxaa jirtay 1988 meesha waxaan ku haysanay koox Soomaali ah oo music tunto riwaayadaha sameeyso maalinka dambe waxaa dhacay meeshana ma aha waagi hadda Soomaalida ay yimaadeen oo hadda meel degan oo ganacsiga oo socdo oo wax walba oo socdo ma jirin waagaas xataa haddii adiga lagu helo xataa seeragoos sharci laawe waa lagu xiraa ama lacag ama dadka tada ku furnay waaya anagoo dhibkaas qabno ayaa ninkii durbaanka noo garaacay kooxda naga dhig maalinka dambe waxaa yiri warniyo walaalayaalow wiilna waxaa yiri hantooshi oo masaajidka la soo qaaday fannaankii guridnay hantoosh afartan geesaan ka qabsanay la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad rasul anagoo wadana masaajidkeen way fiiriyeen alla Soomaali jaahilnimo intee fiiriyeen waxay yiraahdeen ninkan waxaan dhahay ninkan anaga lacagna uma hayno godka oo la gelinaayeen waa 5,000 oo laakiin anagana ma haysano ninkooda islaadkan keenna ninkan muslimnimada ma artay loogu naxariisto hal duugo wadaadida waxay soo istaageen ninkan eeto maba ku tukanayna xataa adiga iska dhaaf godan ma artay aan lacagtiisa ka bixin anigoo yaaban wiilashiina waxay yiraahdeen aliyow annaga magaalada asgal leen shahaada iska aad leen ninkan anaga meesha ugu tagayna maya inta meel loo baxan male waa soo qaadnay walaalayaal inta ka bixiyay midigta ninkii yaqaan 8 street masaajid galaashiisa waxa ku yaala center oo kristaani aan sameeyaa di muslimkii diideen kristaanka u geey islaantii lahayd oo odayga baadiriga weyn oo qabay ayaa aragtay what is wrong here because waxaa yiri shiiqina noogu weyn anaga dhintay way orday odaygeeda u tagto odaygeeda waxaa la yiraahdaa maxaa magaciisa waxaa la yiraahdaa Father John ay ninkan muxuu yahay ninkan waa shiiqin waa ninkii saas isla markii inta la orday baawur ubax jaakad dhar karawaati loo soo labisay
waxaa la yidhi shiiqaada u duceey aakhiro u socdaa ilaahiisa u socdaa isagaan dhigta waxaan u sheegay saaxiibow meel aan ku geeyey waa weynay muslimkiina waa ku diideen ilaahayna markhaatiyou ku yahay aakhiro hadduu janno ku geenaayo hadduu naar ku geenaayo adiga waay laakiin annaga ujeedadeeda waxay ahayd adiga le inaad godla iga geshid niyaddana waxaan ka leeyahay ilaah oo kan yaa jacketka iyo surwaalka iyo kabaha ilaah iyo kan yaa kaaga siiyo haddaa cidla ku heli lahayd waa 1975 waxaan ka baxsaday dalka soomaaliya ilaa soco tanzania marnay ilaa marka aan beira aan ku dhownahay oo meel la maranayo si jirin oo rafaad iyo waxa lagu jiro ayaan waxaan arkay dad halkaan oo saf ku jiro yaa maxaa jira waay naag meedaaba la kubsano hayaano oo see la kubsanaa waaye maya macaana dhaqankeena waayo aakhiro haddii ay tagto nin ma helayso marka waa loo hiilinaya ilma adeerteed iyo u hiilinayaan iyo tolkii oo dhan u imaanayan safaa laga galaa waxyaabaha yaab kale maartay